dekeda magaalada Berbera waa xudunta dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waana deked taariikh fac weyn leh oo ku taala bogcad istaraatiijiga dalka buutisiyay Berbera mudana meeshay ku taala muhiimad weyn muftaxinay dalka buutisiyay Berbera mudana meeshay ku taala muhiimad weyn muftaxinay haddaba barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa muhiimadda dekeda Berbera ay u leedahay Somaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika iyadoo sidoo kalena aynu diiradda saari doono horumarka dhinacyada kala duwana ee ay dekedu ku tallaabsatay muddadii uu xilka hayay maareeyaha guud ee hay'adaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdulaahi hase yeeshee waxaynu marka hore dib u milicsan doonaa qaabkii ay dekedu ahayd ka hor intaanay Somaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabtu kala saxeexan heshiis maalgashi bishii May ee sanadkii 2016 xilligaas oo DP World ay bilowday in marsada Berbera ay ku maalgeliso dhaqaale dhan 442 milyan oo dollarka Mareykanka markii isbedelka lagu sameeyay waxaanu keenay wiishash waaweyn oo la yiraahdo mobile crane kuwaasoo xajmiga qaaditaankoodu uu ahaa 120 tan laakiin caqabadda weyn waxay noqotay culayska wiishku inuu halis ku keenay dekadii hore oo aan ka baqnay inay dunto marka 100 mitir u dambeeyay dekada ee Mareykanku uu dhisay oo kaliya ayaa markabka containerka lagu xiri jiray because wiishashkaasi may dhaafi kareen haday dhaafaan inay dunto ayaan ka baqaynay runtii because shil ku dhacay muddo hore ayaa keenay inay dekadu dalooshanto oo hoosta biyo ka soo galaan marka runaantii waqtigii ugu munaasabsanayd ay dawladda Soomaaliland la saxeexatay heshiiska shirkadda DP World si loo casriyeeyo qaybtii hore ee dhaawac u gaadhay looguna daro container terminal isku dhammaystiran alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ka raysanay culayskii ay ka caban jireen maraakiibtu ee damage ku dhici jiray ee ahaa inay kala sugaan maadaama muddada lagu rogay aanay ahayd muddo aad u dheer maanta waxa dhacda maraakiibta containerska sida inay kaga baxaan 23 saacadood qaarna ay kaga baxaan 30 saacadood halka awal kaga bixi jireen 5 cisho ama 6 cisho ama 7 cisho sababtoo ah waxaan isticmaali jirnay wiishashka saaran maraakiibta laakiin maanta wiishashkii ugu casrisanaa ay dekada yeelato ayaa leedahay dekada waqtigii cusbaa heshiiska Somaliland la gashay shirkadda DP World waxaa jiray mucaaradad xoogan iyo dad badan oo heshiiskaasi ka soo horjeeday balse hadda xaqiiqsaday in heshiiskaasi uu horumar u horseeday dekeda magaalada Berbera berigii hore markii heshiiska DP World ay la gashay dawladda Somaliland dadkeenu aad bay ugu qeyriyeen Soomaaliduna hore ugu mahmaaday war xumo tashiil meel buu jira laakiin imika dadkeenu way realize gareen itus oo itaabsi baa ka dhacday marka dadkeenu markay arkeen runtii warkii loo sheegay inaan waxba ka jirin dhismihii bilaabmay isbedelkii yimi aad bay u soo dhaweeyeen waayo shacabka reer Somaliland waa shacab aad u wanaagsan oo jecel waxqabadka iyo horumarka waana soo dhaweeyeen runtii marka laga yimaado horumarka shirkadda DP World waxaa si cad u muuqata horumarka kale ee dekada ku soo kordhiyay muddadii uu xilka hayay maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland iyo waxyaabaha muhiimka ee uu muddadaasi ku soo kordhiyay oo ay u horeeyaan taaga lagu soo jiido maraakiibta مثلا لو كلا مدوح هايسين شري بول كلارس كم هايسين شري مدوح هايسين شري بايلوت فون كم هايسين شري
mid wuxuu haysan jiray restoration kan buu haysan jiray mid waliba qof wax buu haysan jiray xafiisna ma jiri jiray marka intii uu maarayuu noo joogay maasha Allah ilaahay khayr ka siiyay ayuu isagu hawshan isu keenay xafiiskan u sameeyay oo hadii la korooyay xafiiskan aad iyo aad muhiim u ah waana xafiiska ugu muhiimsan waxda badda marka loo eego xafiiska ugu muhiimsan weeyaan ururinta macluumaadka kaydka maraakiibta documentation-ka macluumaadkooda dhan lagu kaydiyo weeyaan waa xafiiska kaliya clearance-ka bixiya fasaxada maraakiibta una ogolaanshiyahana siiya markay maraakiibtu imanayso markay baxayaan ogolaanshiyaha siiya waa xafiiska ugu muhiimsan aad iyo aad baan u mahadsanyahay maareeyo isaga hawsha fulinteeda iska lahaa asaaska xafiiskan iska lahaa horumarka laga sameeyay qalabka dekedda ee maamulkan cusub maareeyo Saciid uu hogaaminaya uu sameeyay intii uu joogay international pilot boat laba taag oo international standard halka marka la barbar dhigo maamuladii hore iyagoo ka muddo dheeraa uu jiray hal taag oo 40 sano jira oo laga dhaxlay dawladdiisa aad baray 30 sanadoodna aan wax alla wax laga qabtay ay jiray aynu sugayno inuu meesha ku dego marka halka farq weyn ayaa u dhaxay imika dekedu 3 taag iyo pilot boat bay leedahay dhammaystiran oo qalabeysan oo de markabku markuu 4-5 miles soo jiraabo arkaya in pilotkii ku soo socdo waayo pilot boatkii waa arkaya in pilot falaagi saaran yahay baa arkaya waayo pilotku calan buu leeyahay marka uu ka garanaya laashashka kale waxa kale meesha maraya markuu arko in pilot boatka marka alxamdulillah way fiican tahay farq weyn baa u dhaxeeya xilliga iyo xilligan imika la joogo waxaan repair gareynay noobiyadihii ama lighthouse-yadii waxa kale oo repair gareynay leading light house-ka soo maraakiibtu ay soo eegtaan kaasoo muddadii aan joogay aan jirinba oo aan dib u bilaabay oo muhiim oo laga maarmaana waxaan mar kasta isku dayaa in standardka dekeddu uu noqdo mid caalami ah oo la jaan qaada dekedaha si ay u noqoto international waayo waxaanu ka guurnay traditional port waxaanu u guurnay international port aniga oo aqoon kororsi lafteedu ugu tagay dekeda waaweyn oo caalamka ku yaala ayaa waxaan jeclaystay inaan standardkaa gaadhsiino sidee lagu gaadhayaa haddaan dadka aqoontooda la barin aan la qalabayn ma gaadhi karaysa markaa macallimiin baan dibadda uga keennay si ay u tababaraan shaqaalaha waxaanu lahaan jirnay berigii hore 2 taag master maantana waxaanu leenahay 9 bayloodadu 4 bay ahaayeen maanta waxaanu leenahay 11 injineeradu waxay ahaayeen 1 maanta waxaanu leenahay qualified engineers 9 gaadhaya alxamdulilah rabbil caalamiin iminkana waxaanu rajaynaynaa qaar kale inaan dibadda u dirno oo bayloodada ka mid ah si ay u noqdaan ay u diyaar garoobaan maraakiibta waaweyn sida ay u xiri lahayn maadaama rajada aanu qabnaa uu yahay inay noo yimaadaan mothershipska waaweyn marka inaanu kusoo tababarno oo aanu dibadda geyno insha allah bismillahi kariim alxamdulilah rabbil caalamiin halkii aan ka soo dhaqaaqnay iyo halkan maanta marayna waa kala jaad maadaama dekedeena ay la jaan qaadayso dekedaha caalamka waxaan rajaynaynaa in qalab kasta oo possible dekeda yaraatay inuu yeesho insha allahu hadda waxaa noo soo socda raadaar weyn oo meelaha wax ka arkaya ay aada fog yihiin insha allah board controlku waa hagaha dhammaanba dekedda halka u muhiimsan in laga soo galo shaqadoo dhanna waxay ka bilaabataa halkan markabku markuu soo dhaqaaqo wuxuu la soo socodsiinaya board controlka ayaa u diyaargaranaya dhammaan wixii assistant ee uu baahnaa markuu baxayna waa sidaas leeg marka alxamdulilah rabbil caalamiin 2 sano ka hor iyo maanta halkaan marayna waxaa u dhexeeya gaab aad u fara badan waxaa kale oo jira in muddadii uu maareeyuhu xilka hayay tababaro kala duwan loo fidiyey shaqaalaha howlwadeennada iyo farsamayaqaanada kala duwan ee ka howlgala marsada magaalada berbera in la dhiso shaqaale mujtamac hawo shaqo iyo han ku jiro oo u heelan shaqada cusub ee bilaabantay challenge-ka ay keenayso in loo diyaar gareeyo shaqaalihii oo loo qabto training tababaro
joogta ah si ay ula qabsadaan gaadiidka inagu soo waajahan iyo horumarka aynu higsanayna wixii uu challenge inoo keenayo in shaqaalihii loo tayeeyo awal hore there was no planning ma garatay ma ay jirin tababarana ma jirin ha socoto un bay ahayd waana ka dakhli badneed markaa ma garatay markaa maasha Allah maanta way aad iyo aad bay ugu duwan tahay sidii hore ay ahayd wadannada ka faa'iideystay tababarka waxaa ka mid ah kabtan Axmed Nuur waana kan isagoo arrintaasi sharaxaya iyo muhiimadda ay u leedahay trainingku markuu bilaabmay run ahaantii waxa lagu bilaabay wada dhalinyaro si jiilka aan ula jaan qaadno dekada koraysa ee kor u kacaysa because maxaa yeelay dekada imika sidii hore ma aha oo growing ba ku socda maadaama uu growing ku socdo waa in shaqaalihii la dhisaa haddaan shaqaalaha la dhisin oo aan tababar la siin run ahaantii lama jaan qaadi kartid sida imika ay dekadu ay u socoto maalgashiga iyo casriyeynta ka socda dekada Berbera waa mid loogu talagalay in lagu soo jiito sidii dalka Ethiopia uu isticmaali lahaa dekadan waxaana arrintan sharaxaad ka bixinaya Maareeye Saciid Xasan Cabdilaahi dekedeenu mar walba waxaanu ka shaqeynaa waa service-kana waxa la rabaa maamul iyo shaqaale iyo dawlad in loo weel sameesto si loo helo macaamiil fara badan marka runtii wada hadal muhiim ah ayaa u socda dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia maadaama dawladda Ethiopia u baahan tahay korodhor fara badan oo isticmaasho korodhorku dekadu haddii aan wada helina ma soconayso infrastructure ku isku wada xidhan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin 2022 ayaan rajaynaynaa inay dhamaato Berbera korodhor taasina wax badan bay ka bedelaysaa socodkii gaadiidka waxaanu rajaynaynaa in boqolkiiba 30 insha Allah dawladda Ethiopia isticmaasho hadday isticmaashana capacity-gu aad buu ka cayar runtii iyadana waxay u tahay dawladda Ethiopia faa'iido because culays badan oo haystay ayaan ka qaadanaa muxuu yahay higsiga ay ku taamayso dekada Berbera in ay ku tallaabsato iyo waxyaabaha u qorshaysan maareeyaha in uu qaado mustaqbalka dhow qorshayaasha noo qorshaysan waxa weeye runtii sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo in la dhamaystiro oo la bilaabo 600 mitir lagu korneeyay dekada waxa kaloo noo qorshaysan in pipeline-ka shidaalka qaada aan u sameeyno corridor kaliya maadaama 3 line ay yeelaan badda inaanu hal isaga dhigno waddo kaliya oo ay maraan oo loo yaqaano corridorkii shidaalka waxaan rajaynaynaa oo kale inay noo qabsano sanadkan imika oo aan bilownay free zone-kii inuu dhammaado isaguna haddii Ilaahay yiraahdo sanad gudihii waxa noo qorshaysan in haddii Ilaahay yiraahdo aan soo iibsano hal taag boat kale oo isaguna aan ku soo korno haddii eebay yiraahdo maadaama dekadu maalinba ka sii dambaysa ay ballaaranayso haddii Ilaahay yiraahdo waxa kaloo noo qorshaysan inaanu sameeyno dredging oo channelka isagana aanu qodno oo depthka maraakiib waaweyn maadaama ay soo marayso channelka fog isagana waxoogaa la qodo waxa kaloo noo qorshaysan dhammaan maraakiibta scrap-ka ah ee badda dhex taala taasoo isu socodka maraakiibta halis ku keenaysa in iyagana badda laga safeeyo haddii Ilaahay yiraahdo waxaa jira runtii dekedeenu waxaa ku taallaa goob location aada u muhiim ah oo runtii soo jiidanaya inay isticmaalaan maraakiibta containerska qaada si ay transshipment ugu sameeyaan waxaanu sameynaynaa insha Allah sanadkan marka la bilaabo 600 mitir cusub ee dambe in la sameeyo transshipment si maraakiibta waaweyni ay ugu soo xidhaan dekada Berbera hadhowna ay uga qaadaan maraakiibta yaryar ee la yiraahdo feeder vessels